لفظ عشرة صدح بقول سديد يلا باطن تفسيرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. سورة أفرية ضباطا وسورة المدثر مكية وآياتها 56 وسورة دي لبعض سورة دكتي قرآنك اقرأ أيها الرئيس سورة العلق وأفتح لي سورة الجتان سيراي وسورة الجنين والله يا روايانك قاركود ولبا صحيحة inay sheegaan inay u horeysay suuradan laakiin marka la isku soo ururiyo sida raajixa waa asaas weey awwal ma nazal iqra ya ugu horeysay quraanka wax soo dega aakhir ma nazal wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah aayada ku sugan suuratul baqara qaybeeda dambe aakhirkeeda sidii suuradii hore ayuunba u hadlaysa labadii suuradood ku xigay un xagga iqra soo degitaanka ayay ahaayeen mudathir iyo muzammil taabicooda muuqaalkooda ayaa isku mid labada suuradood soo hadlayaan kow intuu ilaahay u yeedhay nabiga calayhi salaatu wasalaam kasakow wuxuu farayaa diyaar garow inuu diyaar garoobo iyo siduu u diyaar garoobi lahaa waa arrin shabahaysa suuradii hore waxay ka hadlaysa waxa labaad oo ilaahay uu ka waramaya marka laga bilaabo darni wa man khalaqtu wahidan ilaa laga gaadho 12 aayadood isku xiga dabeecadda dadka uu waajahayo nabigu calayhi salaatu wasalaam dadku waajahayo ee dacwadahaan iyo doodahaan iyo dagaalahaan uu ku waajahayo ayaa loo sawiraya deewana wax jiro xaqiiqo laba hadaad inka cadow waajahayso oo lagu siiyo xaqiiqadiisa dhabta ah wararkiisa awoodiisa tiradiisa bayskiisa iyo meeshu fadhiyo waxa lagu aad macluumaadka wada hayso waad ka adkaan karaysaa hadaad laakiin qaflad kaga sugantay ama aad sahashanayso cidaad waajahayso waa laga guuleysanaya معلوماتك مهم عالم السر وأخفى وحكستو قرصون إلهي أغا أيا ضدك كهرية نبيك وصوب بندقيا وكالسلاسة قالك كسوغيا نبي موسى مركو إلهي ديري فرعون بوغا ورمي قصاد النبي موسى وعلى ذلك السيدة فرعون يحالد يسلقا ورمي وحكو حقا وكالي وإلهي وكورمي دونا dabeecadda ka marka loo sheego gaaladu waajahaya nabigu awoodaha ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodaha ilaahay ayaa suuradu ay ka waramaysaa kalla wal qamar wal layli id adbar was subhi idha asfar innaha la ihdal kubar adduuniya aakhirada awoodaha ilaahay u leeyahay ayaa suuradu ay ka waramaysaa taa macnaheeduna marka waxa weey dagaalkan adagaad gashi laakiin ilaahay baa ku garab taagan ilaaha awooda leh baad haysataayo de kan waa markaad waajahdeed si dhaba u waajahdeed ilaahayna weeshanayso waad ka adkaan sidii baana u dhacday waxa ku sii xigoo saddexaad suurada qaybteeda dambe inaan tan lagu waarayn hawl kasta ka soo gaadha nabiga wal aakhiratu khayrun laka min al-ula aakhiratu tan dambe waa tan adduunyada aakhirada ku dhaantay marka kifaaxan iyo dagaalkan adag nabigu hagale adduunyadana isaga guuleysanaya aakhirana adaa guuleysanaya haziina
jab adduunyo iyo cadaabka noocan ah aakhiro ayaa u dambeeya iimaan laawana taasina waa mid kale kaga samrayso oonad ciil ugu qabin cadowga iyo dagaalkiisa marka cadaabka aakhiro iimaan laawa sugaya suuraddu isagana way sawirtay saddexda arrimood ama afarta arrimood baa muxtawayaadkeeda iyo suuraddu waxyaalaha ay koobsatay uu badan yahay بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر كان استوطوا يوم قم استاغو فأنذر ذاتك ودك وربك إلها جنف فكبر وينيه وثيابك دركا جنف فطهر نظيف والرجز سنمياشنا فهجر اسكغتك ولا تمنن هبحن وحي أدبحنيس تستكثر أدقوا بطسنيا ولربك إلها جنف فاصبر أصبر صبر إلهي دلادية فإذا نقر مركا لأفوفه في الناقور عروقية صورة مركا لأفوفه فذلك وقت قاس يومئذ مالنتاس يوم عسير ومالنا لقوي على الكافرين قالبه غير يسير ومذا كسه لنا ينكف ضضين وأدقي قالب كسي أدقي يارمك نبي إلهو ياري كان استوطوبا يو أرمها فولي بالي رسولكنا صلى الله عليه وسلم قصة وكور رمايو أنيقوا أكو خلاوين يا غار حراء أيوم با waxa igu soo noqday buuri malagii maalintii hore iqra igu yimi maalintu iqra isii xira igu yimi maalintu iqra igu soo akhriyay igu soo dajiyay qaar xira malagii igu yimi mar labaad igu soo noqday على كرسي قاعد على كرسي بين السماء والأرض isagoo kursi ku fadhiya cirka iyo dhulka dhexdooda قد سد الأفق وي جوين كودنا الضبولي أمرك يوم لقنمدي سيكوين مركا عضبا مغليا هريرها مركي أنا يجي وحبا أركي وأنا كوريا جايبان أركي سجا سداد دراد علي سبا يقول دعي حتى هويت إلى الأرض إلى أن روك قلي فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني مركا النبي ساسو لي ودثروني انت صاع على رأياني وعبصدي وخيركي ومدو وحان لا إدوطوبة مركا لبدا سولادات باسوات دقاء مدثر إيا مزمل مدة أنا أود حيثي على إله انت أكذب ثم حمي الوحي وتتابع مركي الدمدان لقب صدينا وحي قوس الصوت بقرأ وحي السعادي والسعود مركا نحرينتي والنبي ونحي عليه الصلاة والسلام لا أرنكو أنا أرن وين أما أنا عروسنا والله حنبارنا وأنا كام وقال كيسا ينصوش يقني مركا النبي قال لقو سودة تشيني وحي عليسك أولها عليسك أولين كلام رب العالمين سبحانه arrimo dhowr la faray ama raa'is tabassuclawi oo ka imanaya ilaahi weyna subhana marka hore waa qum fa anzir qum wa istaag fadhima joogo fadhigii uu soo dhamaado 40 sano hore kugu eega fadhiga waa laga soo gudbay marka qofkan hawshan u taagnayniba uu fadhiyaa walaw haba socdabe hawl badan baad haysido habeen iyo maalin baad taagnaatid hadaana dacwada ilaahay u taagnay oo iska fadhidaado ولا زلت من القاعدين كوا فرديون بعد كشرتاه وحلقوا تحقلنا يا إنا تاجن تهاي تمرك الدين يدعوة تاجن ليس كفردياش ما كشرتاه ولا جاب الحيس ورضا دنيا ورضا طبيعة الرسالة رسالة أنت بعد إذا وحكوا كأدجنين فلو في رسول الله رسول الله بيدجنين تاسوك بالعضية إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم أن أنذر قومك سورة النوح بين كسامرين بلا وبين وأنذر عشيرتك الأقربين
nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kuwa kugu dhow ka bilow waxa u muhiimsan wax gacal kula gurmado bal horta barkhadi ha dambayse balaayo in lagaaga digo in dheef lagu siiyo iyo in dhib lagaa joojiyo inaa roo horta intaadan aad haysato balaayadii kaa duulin lahayd lagaa joojiyo ayaa horta in wax lagu biiriyo ka roo waa usuusha shareecadeenu ay u tahay dafcu lmafaasid awlaa min jalbi lmasaalix in horta mafsadada lagaa joojiyo iyo balaayada ayaa in wax lagu biiriyo lagu kordhiyaba ka roomba marka dabiicadda risaaladu kow waxa ka digniin marka haddaynu dadkeenna u digi weyno waynu hakranay hadaad naftaada u digi weydaad ehelkaaga u digi weydaad dadkaaga u digi weydaad khatar uga digi weydaad aakhira uga digi weydo adduunyada balaayooyinkooda waa iska sahal in yar u baahaynayaan way ka caafimaadayaan laakiin cudurka aan laga soo kabanayn waa kaa dambe marka dabeecadii risaaladay taasi horeysa qum faandir rasuulka wax shaqada horeysa way adigana shaqada ku sugaysa way warabbaka fakabir waxay sheegaysaa waa wixii lagu diyaar garoobay digniintan culus marka lagu diyaar garoobaysa digri la kaalay digrigana ilaahu qalbigaaga ku weyn ayaa kow ka ah qalbigaaga markaanu ilaahay ka bixineed mar walba kabirayso takbiirtiisa aad badinayso fakabir ilaahay weynee ee qalbigaaga ilaahay uu ku weyn shaytaanna kulama weyna sharwadeenna kulama weyna nafina kulama weyna shahawaatna kulama weyna shahawaat waxa dadka kharaabiyada jaanjaana waxa la wax kula weynaanaya ma jiro haduu ilaahay qalbigaaga ku weyn subhanahu wa ta'ala warabbaka fakabir wa thiyabaka fadhhir wa thiyabi loo diyaar garoobay dharkaaga nadiif ulama tafsiir macnayaal kale qaar kood saalaan oo ruuxda nadiif iyo baatinka nadiif iyo waxyaabo badan oo noocaas iyo akhlaaqda nadiif iyo dhaqanka nadiif iyo kullu dalika iyagoo de nusuus badan tilmaantay wax baciida ma aha daahirka nafka in la qaato dharkaaga nadiif taasina waxay ka turjumaysaa qofka haddii qalbigiisu nadiif noqdo jirkiisuna waa nadiif qofka muslimka ahina waa nadiif subxaanallahi ina almu'mina laa yanjus nebi maxamed wuxuu leeyahay ilaahay baa xumaan ka hufane qofka muuminkii maba nijaasoobada waxaa markaa aayadan ugu horreysay aayadihii soo degay ay tilmaamaysa muhiimadda nadaafaddu ay ku leedahay diinteenna weliba ay ku leedahay waxa adiga kugu soo dhow muhiimaddaa daraaddeed baa laga dhigay shuruudii salaada kam hiya shuruudu salaa rag badan baan garanaya inay ku adkaanaysa shuruudda salaada tukanayana salaad sax tukanaya dee marka shuruudda garanaysa ma salaad sax دي كلا حباب بوشاق شروط الصلاة الخمس شروط الصلاة الشمس هيدا وحكم لها طهارة المكان والحدث والجسد ماشت كنت كنيس طهارة المكان والبدن والثياب ماشت كنت كنيس هي دركاغا هي تشركاغا انت بين النظيفين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين مركوا ما هو حلا ينقوها رو سنكر aad baan u qoslay maanta markaan arkay wasiiradeena iyo madaxdeena oo furaya hay'ad gabigeeduba la socota inayna barto faraxalka walka wara billahi alayk wasan ka yara qosla waxaan ku ma yiraahdaan annaga seminaarka idin kaga filane qaxwaha meelo kale inagu bixiya dadka faraxal iyo istijo iyo mayriba aan u sheegnay istijadaaba ka sii horeyso ka muhiimsan baba istijoodaanba ka faraxalka ku sheegaya kliinikis yar buu marsanaya xamaamkiisu maba lahaba weysadii lagu istijoonayay udhaladooda 5 starka ugu waaweyn liiska ugu ma jirtay istijadii gacanteediiba meelaha muslimku ma lagu arkaya kliinikis yar buu marsanaya wuxuu kula halka bacteria jaraatiim iyo xasaylaada lama taabto iska xambaaranaya faraxalna uu ku baraya waaya inagana waxa la inooga bilaabay casharadii ugu horeeyay nabi maxamed sallallahu alayhi salaatu wasalaam wa thiyabaka fadhhir marka ma aha inaynu ictiraafno afrikadii adduunyadii saddexaad faraxa loola soo gurmadaynayna inuu idhaahno way adeer intaa waanu kala horeynaaye wax kala sheeg de laadi kala waxaad qaadatay tii ahayd waa nadaafad darantiina oo iskagaysantiina wixii la akhri jiray wathiyabaka fadhhir darkaagana nadiif diyaar garow qalbigu saa ku nadiif noqdo jirkuna nadiif ku noqdo والرجز فهجر وسخنا اسكغتي فاجتنبوا الرجس من الأوثان سورة الحج كاخر
rijsigu waxa uu yahay suuradaasaa fasirtay min alawthaan baa lagu fasiray wasakhda qalbiga wasakhayso alla cid aan hayn oo la caabuda jirka nadaafad daradiisa iyo wasakhdiisa waxa ka sii daran wasakhda qalbiga hadduu qalbigu wasakhoobo oo meeshii shaki iyo shirki iyo shubha iyo ay jiraan iimaan la'aani de wasakhiba miyay ka dhammaanaysa weligiiba jir kasta ha nadiifiye ilaahay baa yidhi innama almushrikuuna najas iimaan laawayaashu waa nijaas waxaa la isla waafaqsan yahay culamada muslimiintu u badan yihiin man yuctabaru qawluh nijaasadii qalbiga inay tahay taas qofka muuminkii ma nijaasooba markuu nebigu leeyahayna waa tahaarada qalbiga laa yamasuhu ila almutahharuun kitaabka qur-aanka waxa qaadada daahir oo qalbigu nadiifu yahay taa shaamboona ma gaadho saabuunina ma gaadho waxa gaadha uun waxaan qur-aanku uu sheegayo unbaa lagu nadiifinayaa warujza fahjur nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sananba ma caabudinba ilaahay cid aan ahaynba muu caabudin intii ka horraysay aan lardirinba laakiin waxa weeye isaga dad badan baa daba socda oo hormuud uu yahay adiga wixii lagu diray cid kalena looma ogola ilaahay cid aan ahayn ha laga tago alla yaqaanimada taasaa kow ka ah walaa tamnun tastaksiru waxay sheegaysaa waa habkii loo diyaargaroobay dharkii baa la nadiifiyo qalbigii baa la nadiifiyo digniintii baa la bixiyo kullu daalik waxaad isku daraysaa caqiido iyo cibaado iyo cadiyo intaba waa la isku daraya cadiyadiina ku dar waxaad u diyaargarowdaa saacadda laga bilaabo inaad noqoto min anfaci alcibaadi lilcibaad qofka daaciga waa inaad noqotaa dadka mid ula yeelan dheef oo aan dhib lahayn qofka muslimka waa taas weey qofka muslimkii dhib low maaha iimaan la'aanta dhib ayaa dhibka wadata laakiin qofka muslimkii waa mid dheef midhana marka walaa tamnun tastaksir waxa bixinin adigoo badsanaya horta wax bixi baa ka horaysa oo maxaa la bixinayaa waxa la wixii bixin istaahiloo dhan arrin baa dadka la siinayaa aqoon baa loola gurmanayaa awood baa lagu saacidayaa adduun baa la siinayaa hallo waxaad hayso khayru nnaasi anfacuhum licibaadi xadiidkaasi waa sugan dadka waxa ugu khayr badan ka addoomaha ugu nafci badan qofka muslimka ah maaha qof dadka culays ku ah dhinacyo badan marka la eego ee waa qof dadku ay u aayaan aqoontiisa la maalaya adduunkiisa la maalaya waxa la maalaya awoodiisa aaraadiisa la maalaya istiraatiijiyada wanaagsan ummadda u dhigaya la maalaya marka walaa tamnun tastaksir wixii aad bixinayso markaad bixinayso horta wax bixiyo markaad bixinaysana adoo u arkaya inuu badan yahay bixini haddaad cilmi bixinaysa ha u arkin inuu wax badan yahay haddaad cuud iyo xoolo bixinaysa ha u arkin wax badan inuu yahay haddaad dadka waxtar u leedahay ha u mana sheeganinoo ha arkin adiga oo wax badan bixiyey macnaha horta waxaad u fahamtaa ana haada waajibun calayk inuu shaygani faral kugu yahay oo aamin dee uma arkaysidba markaa wax badan waxaad ku qanacsan tahay ummaddu waxaan wax ka badan inay kaa sugayso waxaan wax ka badan waajib intan ka dabeetana mar walba waxaad leedahay wallahi qusuur baad samaysay waxaanaad bixisay wixii lagaa sugayay maaha mar walba waad yaraysanaysa marka waxaad bixinaysaa noocyada kala duwan mid kasta ha ahaadee yuu kula badanin ilaa hadduu kula bato waad joojini laxa jeclxuma ku qabanaysa dadkani adun baa ku dul saaran inay wax kugu qabaan haddaad tidhaahdo dee isla fagar badanaysa ibliiska kaa dhaxadlaya kadibna waad joojinaysaa wixii ama waad yaraynaysa marka yuu kula noqonin waxaad bixinaysaa wax badan ee mar walba yarayso waxaad badanaysa waxaad bixinaysa taasi mid weeye oo ogow inuu kugu waajib yahay waxa ummadda aad siinaysa walaa tamnun tastaksiru waxa lagu macneeyey walaa tamnunha bixinin tastakthiru siintiyo taadu waa dalabiyataan marka wax la doonayaa la isticmaalaa adiga oo ha u bixinin wixii aad bixinayso isla kaga badso hebel waxaan wax u siinayaa waan kaga badsanayaa hebel waxaan wax ugu sheegayaa wuu iga badinayaa waxaagii baad wax ku doonaysa bani aadam waxaa kaga doonina ilaahay wax kaga doon subxaanahu watacaala والتوجيهات كي تلمامين النبي محمد الله لقينا قف ولبا وحو دونيا وحبو ku doonaaha laakiin adiga hankaagu ma yara hankaagu weyn yahayo wixii aad bixinaysa ilaahay baad wax kaga doonaysa
aadamaha iyo waxooduba wuu isla dhimanaya waljinnu walinsu yamuutuun ina allaha xayun daa'imun laa yamuut yaduhu mal'aa saxaa'u leyla waannahaar mar walba gacantiisu way shubmaysa isaga marka cid markaad wax siinayso soomaalida waxay idhahdeen hebel waan hebel maxaad wax u siisay waabu maba baahne baad odhanaysaa markaasuu leeya waan kaga soo goynayaayo hadhow buu iga badinayaa ii buurbuuraya waan kaga soo jarayaa buu leeya dabeetana waxay ku odhanayaan bakhaylka waa loo bilaabaa si uu kugu irmaanaado weyn waxba ha ka sugi mid guran oo irmaan ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantiisu aanay guraynin wax ka sugan saasaa loo tarbiyey nabi maxamed walirabbika fasbir ilaahagana weyn u sabir macnaha waxa weeye meesha hawshaad galaysa hawl sahlan maaha hawl weyn weeye marka sabir ogow qofka aan sabir lahayn musiibada adduunyada kama dabaasho qofka aan sabir lahayn dacwad ma wadi karo qofka aan sabir lahayn dagaal ma wadi karo qofka aan sabir lahayn reer ma wadi karo ubad iyo ooritoona walirabbika fasbir marka fasbir kaliya maaha lirabbika baa la socota tallaabadii walba ilaahay daraadii u qaad intaasoo dhan adigoo yeelay waxaad ogaataa isbedelka aakhira inaad usii diyaar noqo sidaa ilaahay qalbigaaga kugu weyn aakhirana qalbigaaga ha ugu jirto faidaa nuqira fi naaquur naaquurku waa cadhooga ilaahayda cadhoogiisa ku dhawaaqaya ku yeedhinaya fadalika yowmaidin yowmun casiir cala alkaafiriina kayru yasiir maalin adag wey yowma yajcalu lwildaana shiiban assamaau munfatirun bih ayaynu soo marnay marka maalinkaa adagina wuu ku sugaya isaguna qalbigaaga ha ku weynaado markaa nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kayfa ancam wasaaxibu lqarni qad iltaqama alqarna waxanaa jabhatah yantadiru mataa yu'maru fayanfukh فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا وسيدابان الراحيسان كرابور كي عروق أفوفيي ملقاها أفكابو قليا أمر إلهي بسوغيا قورتي إنو كيوري الأمر الله صحابتوا ويابين وحيدادين حانوا يا الله dee iska ducaysto ilaahay ku tirsan buu xasbuna allah wa ni'mal wakiil marka aakhirana insaanka ay qalbigiisu ku weyn tahay adduunyadan wax badan baa u fududaanaya fadarni baa ilaahay wuri darni aniga idaa waman khalaqtu waxiidan aniga iyo isukaayada waman khalaqtu waxiidan ka aan abuuray kelidii wajacaltu lahu maalan mamduuda xoolo badan baan siiyey wabaniina shuhuudan inama wada goobjoogaan siiyey wamahadtu lahu waan u goglay tamhiidan gogol waan u balballaadhiyey uma yadmacu waxaabuu sugayaaba an asiid inaan u kordhiyo kallaa ha ka yaabin looma kordhinayo calaflaawaha innahu kaana wuxuu ahaa liaayaatina caniidan aayadaha iyaga mid ku madax adag buu ahaa saurhiquhu waxaan ku kallifi doonaa sacuudan inuu buuraha fanto naaraha innahu isagu fakara wuu fikiray waqadara waxbuu qorsheeyey faqutila waa la nacdalaye kayfa qadara sideebuu wax u qorsheeyey uma qutila waa la nacdalaye kayfa qadara sideebuu wax u habeeyey uma intaa kadib nadara arrinkiibuu dib u eegay uma cabasa wejiguu ururiyey wa basara kabtuu ka sii dhigay uma adbara wuu afmaroorin buu bilaabo wuu jeedsaday wastakbara wuu isweyneeyey faqaala markaasaa wuxuu yidhi in haadaa maa haadaa muu ahaanin qur-aankan muxamed oo akhriyayaa ilaa sixrun waa sixir yu'thar la soo naqilayo yunqal laga soo naqilay bani aadam in haadaa muu ahaanin kan uu sheegaya muxamed ilaa qawlu lbashar waa bani aadam hadalkii buu yidhi gaalkaas allah u hanjabo wuxuu yidhi sausliihi saqar naarta saqara la yidhaha baan bartanka u dhigi wamaa adraak oo maxaa ku ogeysiiye aadamow maa saqaru naartaasi waxa ay tahy laa tubqii ma reebaysa hilibka walaa tadaru lafahana kama tegayso lawaaxatun mid leefid badan weeye
lilbashar jidhka bani aadamka sidaasay u muudsan calayhaa waxaa dul taaganoo heegan ku ah 19 malag dabeecadda dadka sugaya waa kuwa miyay dhammaadeen kuwii mayoo ka sii dareen kuwii noocan ahaa ee nabiga hortaagnaa calayhi salaatu wasalaam iyagoo aqoon helay oo awood helay oo adduun helay oo istaraatiijiyado kala duwan samaysanayay soo ligayn oo isaga kaa dhigaya inuu yahay ka ku badbaadinaya kuwiibaa halkan soo fadhfadhiya oo kala noocnooca oo bari kaa xiga oo galbeed kaa xiga oo dhan walba kaa xiga waa kuwa marka noocan weeye kuwa noocan ee kibirkani haye ee nicmadii ilaahay aan ku mahadnaqin nicmadii ilaahay ku faaqay ku fikiray nicmadii ilaahay ayay fasaad ka qaadeen waxaas ayaan siiyay ilaahay subhanahu marka kuwa weeye waxay markaa culimada tafsiir ama taariikhda culimadeedu ay tilmaamayaan dhowr nin bay ku sheegeen laakiin wali ibn mughira ninka la yiraahdo ayaa ay u badan yihiin inuu ninkan ahaa aayaadku ay saan u sifaynayaan Khalid bin Walid iyo Hisham ninkii waa baaha weey adoo saddex nin baa ka islaamay mala labada ay mid kale ninkan isaga ah xoolo badanna uu lahaa inama badanna waa lahaa qolada u yar ay ku sheegeen 7 ama dhowr iyo 10 kooxdii maka u joogtay iyo kooxdii u joogay Taif marka la isku daro inamadiisu dhowr iyo 10 bay ahaayeen marka ilaahay waa u nicmeeyo dad badan buu siiyay dunyana waa la siiyay labadaas la isugu daray dadkii iyo dunyaduna waxay si macna leeyihiin markay ku urursan yihiin haday ka kala filqayeen oo qaaradaha in yariba meel taalo dadkuna in yariba meel marto waa nooc musiibo ah waa kan ilaahay maalkiina mamduud buu ku sheegay baniinkiina shuhuud buu ku sheegay goob joog bay wadayeen hadaad geeri iyo cudur iyo wax kasta iyo calaw wax kasta ku qabsado de qofka ku ag joogun baa ku tara toban inanoo ka maqan islaamaha jaarkaaga ku dhaama leena kuwani way jalkay kugu qabanayaan marka xigmadan waa baniina shuhuudda meesha ku jirta shuhuudan waa nicamkay kamid tahay usradaadii ehelku inuu ka agdhowi adduun badan bay haysanin meelo qaar Australia joogaan oo qaar America qaar kada ay joogaan dollar bay soo dirayaan laakiin halkan odayga islaamta ku baxtiyaya dollarkooda iyo iyagiiba halkaas isku lahaadeen marka xigmadda wuxuu uga jeednaa min ni'amillah nicmooyinku ilaahay dadka siya waxa kamida inay ummadda urursanto oo dalkooda iyo dadkooda iyo isku meel ku wada nool yihiin isku heshanayaan wanaag ku wada joogaan baa min ni'amillah kamida marka ninka nicmooyinka saa ilaahay u siiyay xoolihiisu way badnaayeen inamadiisu waa badnaayeen awood iyo adduun iyo ubad la isugu dar kadib wuxuu bilaabay nacnacdii ay kufaartu bilaabi jireen oo ahaa in ilaahay awliyadiisii diintiisii iyo dadkiisa wanaagsan laga dhammaan waayo dagaal lagu soo qaado markaasaa dabeedna wuxuu bilaabay faallo dheer bal maxamed anaa ka warkeen qur-aankuu soo dhageystay nabiguu soo dhageystay wacdigiisa calayhi salaatu wasalaam kolkaasaa dabeetana uu soo noqday isagoo faallaynay war ka faallood baa layidhi hadaad maxamed u kuur gashay diraasadna ku samaysay wixii uu dadka ku akhriyayay maqaal dheer buu jireeyey ayuu jeediyey markaa inna lahu la halaawa wala talaawa waxa uu leeyahay macaan buu leeyahay hadalkiisu iyo dhalaal buu leeyahay dadku dhaqaajinayo sixir ma aho shicir ma aho markuu inta akhriyay ayaa dabeetana yiraahdeen isaga laftiisu duray waa odayga laftiisi waa talaalan yahay sidoo maxamed dadka u talaali jiray buu u talaalay nin khatar ahaayo abi jahl la oran jiray baa loo dirayo la yiri odayga bal salafkii lagu rogi jiray dadka salafkii jaahiliyada orod ku soo rog ku si uu maxamed uga soo jeedsado uu tagay wuxuu adeer bariyahan waxa la sheegayaa in aad si noqoto maxamed aad ku ag warwareegayso adigoo adduun ka raba marka annaga ku goyn doono waxaagii hore hadduu kugu filaan waaye maad iskaga soo hari doontaa miskiinkan aan waxba haysanin faraha maran laabtu garaaco wuxuu maaniga caynka leeyin anaa dadka ugu xoolo badan anaa sidana haddaba haddii aad doonayso in waa lagu tuhmaye waxa la leeyahay baa la yiraahdaa dadka marka la didinayo imika ninba la doonayo bacd argaha loo tuuro markaasaa waxa la oranayaa nin isagaaba le kan baa abuurayaba waxa oo sheegayaba war waxa la leeyahay suuqa kugu jirto hebelow caynka iyo caynka
dabeedna cirkaasuu marayasuu leeyahay ma aniga ileeyin caynka isdifaac buu bilaabaya marka wixii wadayba uu ka tanaasulaya hadda wax suuqa ugu jiraana ma jira kana imika bilaabaya xarbi dicaayahay ka mid kan imika la hadlaya ayaa waxa la leeyahay waxa suuqa kugu jirto oo dhan isaga imika soo bilaabaya oo ka soo neefneefayaan oo kii ugu horeeyay wasaxaafadu waxay qortay suuqa kugu jiro la leeyahay un baa laga oranaya masaasay yiraahdeen istifaac buu bilaabaya odaygan istifaac soo bilaabay marka dadna waxay yiraahdeen aan ka dhageysanna wixii lagu tuhmay inaanu jirine baldeekeen maxaynu nidhaahnaa ninkan in dadka ugu sheegnaa warbaahinta ka sii deynaa markaasuu dabeetana meel fariistay ana ka soo fikiraya isuga buu waa kan ilaahay kabarada ku qabtay kabaradii ilaahay baa haysta muuqaalkeedina suurada ilaahay inagu soo gudbiyay kolkaasuu fariistay giir buu iska kiciyay wajigu ururiyay kabtu ka dhigay uu ka sii daray kolkaasuu kalba wax soo ka dhacay waxba ka soo neef markii dambu dabeetana yiri in hada illa sihrun yusar in hada illa qawlul bashar go'aankiisa kaasuu noqday waa soo ururiyo ka wadi waayay inuu sixir yahay iyo hadal bani aadam taasaan ku soo ururiyay buu markii aan ka fariistay arrintiisa ee aan u fikiray kadib haddaba fikirkiisii xumaa iyo fadhigiisii xumaa iyo maskaxdiisii xumaa iyo muuqaalkiisii xumaa baleeg ilaahay muuqaalku inooga soo gudbiyay subxaanahu wa ta'ala macnaha sawirka laga bixiyo waa adigoo waliid ibn uqiira ag fadhiyo kala ka dhigantay adigoo ag fadhiyo eegaya isagoo kolba si wajigiisu kala rabixinayo inuu ilaahay tilmaamaya ma qarsoomayso dadka hadiya jeer warbaahinta waxay yiraahdaan bal si xadadka aanu u dhaxtagi karnaa dhacdadana yara dhaxkeeda yiraahdaan ebelow warka aad sheegayso meesha uu ka dhacay muuqaalkeedu nooceebu ahaa dadku saasay ahaayeen saasa xaalad waaydo kaasi saas waxa soo yiraahdaa marka ilaahay baa wax tilmaami oo subhanahu wa ta'ala cid walba wax ka tilmaami intani way dhacday oo maalintii ilaahay sida u tumaatiyay ilaahay inuu daba taagan yahay karti ma yeele markii sida loo tafaafulay loo tumaatiyay ayaa dad iyo dunyaba u xahayay tusbax la furay bay noqdeen istasiri buu kaga tagay aad iyo cayd ayaa isugu darmay aaya calaflaan wakaa darni waman khalaqtu wahid marka qofka diin waaya dadna anficin maayo dunyana anficin mayso dal uu leeyayna ma anfacayo inta midna waxba kuma taraya hadda diin weydo dadka diinuna lagu la dadaalo ubadkaaga diin kula dadaal oo dalkaaga diin kula dadaal oo ehelkaaga diin kula dadaal haday dadku diin wanaagsan yeeshaan iyaga dalkana inoo dhisaya dadkana way inoo dhisayaan dunyadana way inoo sameynayaan wax walba marka taasirta lama fahmin wali dadka wuxuu laga dhisaa un dunyada dalka waxa laga eegaa un dunyada laakiin maamulkii la dhisayay ururkii la dhisayay qabiilkii la dhisayay midna lagama eega dhinaca ilaahay uu dhisayana waa dhinaca rusushu dhinaca dhisaysaana waa dhinaca taasina waa khayru shaahid dadka inta tirsanay waa intii diin lahu kii aan diin lahayn waa dawdar ba iska ilaalinayo la leeyahay maxaa ka soo yari ilaa turaale ma la jecla male darni waman khalaqtu wahida hanjabaadta ka weyn xagaad ka ar ilaahay baa ila aniya ka isu kaayada hanjabaadda ka weyn waa maxay waman khalaqtu wahida waan abuuray isagoo kaliya ubad muu lahayn adduunna muu lahayn oorina muu lahayn tolna muu lahayn wahid darna xataa muu lahayn muriya gacan buu nin qaawan ilmo yar oo qaawan muja ah oo soo beeray oo hooyadii dhigtay buu ahaa bale wakaas sidaas way kama badana awwal khalq nu'iduhu wa'dan alayna qiyamahana saasumay dad ku soo baxaya iyagoon dad wadan oo duunyo wadan ayay soo baxayaan mid waliba wuxuu calfadaba sida macnaha mufassiriintu badan yihiin waa ka weeye in faacilka in mafcuulka laga xaaleeyo ama mawsuulka oo kan isaga ah loo hanjabayaa kaliya culimada qaar kood baa waxay leeyihiin waman khalaqtu ka ana abuuray sukaayada wahidan ano kaliya ilaahay baa wuxuu leeyahay kaligayba abuuray tolkiina ma abuurin xoolihiisuna ma abuurin dawladiisuna ma abuurin kaligayba abuuray waliba kan sukaayada laakiin macnaha hore caama kalidii baan abuuray inta midna muu haysanin kana inta aan siiyay ugu faanaya bal waxa gaaro wadarka waja'altu lahu maalan mamduuda xoolo badan ayaan u sameeyay wa xoolaha maanta cid haysan diin lahayn ay la waalatay وبنينا شهودا بنين كوا ويلاش شهودنا ودا قوبجوج ومهدت له تمهيدا تمهيد كنا وقبل dalkii baa loo goglayo dadkii baa u badano macnaha waxa weeye qof loo salaxay oo kale oo raaxaysanaya weey qofku markuu raaxaysanaya hadiya jeer mahdiga waxa adiga arkayo
de ilmaha yar xoolka iyo meesha loo salaxee la dhigo markaa qofkii nicmooyinka la isugu hagaajiyay saasay ka dhigantay markuu ilaahay dad ina siiyey ee uu dal ina siiyey ee dunyo ina siiyey dee wuu inoo goglay meeshaynu ku noolaan lahay kaamuu dhigin midhac caydha oo aan cid wadanin oo qaxoontiya hadduu kaa dhigo dee waa musiibo weyn laakiin markuu dal aad aamin ku tahay ku siiyo dadkaagiina ku siiyo dunyadii ku siiyo dee maxaad meel kale ugu sii faruur xidhnaanaysa dee u mahadnaquun uma yamacu an aziid weliba wuxuu rabaa inaan kordhiyo de ilan lagama dhergaba hashay miyaa laga dhergaa uma yamacu an aziid waxa qanca un qof imaanladee mid kale ma qancadee soo kordhiya unbuu leeyahay hadduu balaayiin leeyahay oo wax yari ka dhinmaan inta u hadhay eegi mayse inta ka dhimantay unbuu eegaya uma yamacu an aziid haddii aakhiro laga hadlo wuxuu leeyahay ifkanka waxlunba aakhirana wax leh idinku qiyaas sameeya buu leeyahay qiyaas dadka kuwa adduunyada wanaagsan baa aakhiro wanaagsan kuwa xoolaha leh baa aakhiro xoolo leh kuwa dad kale baa aakhiro dad leh saas u oran jiray weligiinba sidaa imika tiinunba aakhirana noqonaysaan aakhirada laftigeeda haddii la tago marka anasiid jannaa buu iga sugayaa kaas kalaa innahu kaana liaayaatina caniidan wakaa cudurka u weyne insaan qaada waa ta ama ummadi qaato aayadaha ilaahay oo la diido waxba kale ma hadhinba ilaahay wax kaloo kugu hadhay ma jiro kor haddaad waxyigiisii diiday wax kalood ka sugaysaa ma jiro ilaahay marka abaalmarintiisiina waxa weeye sawriquhu sacuuda sawriquh irhaaq sacuudku waa meel la fananayo naaraha waxa ka mid ah buuro holcaya oo ilaahay ahlu naarka odhanaya fuul jilbaha ku fuul oo cagaha ku fuul oo gacmaha ku fuul ayaa la odhanaya markeeda horeba fuulitaanku kadeed buu iska ahaa sawriquhuna waxay sheegaysaa iyadoo dabada laga sii musbaaray maxaad u malayn iyadoo fuulitaanku markiisa horeba sangeer u baahnaa iyo culays dheeraada ayaa dabadana laga sii garaacay qofkii oo sawriquhu baa sheegaysa in dabadana laga sii riixayo meesha la fuulayaana waa naar saddexdaasa isugu darbay culayskii fuulimaadku lahaa iyadoo dabada laga sii garaacayo meeshuu fuulayo oo holcaysa intaasaa ilaahay isugu daraya sawriquhu sacuudan muxuu ku mutaystay dee wuxuu ku mutaystay weerarka uu ku qaaday ilaahay diintiisii iyo dadkiisii baleeg marka waa tilmaantii aynu bixinaynay waa ninkii oo markii la ceebeeyey la yidhi suuqa waxaasaa kugu jira yidhi ninkan tanaasulaya warkayga caddaynayaae isuga dabeetana meel buu fadhiisto waa kan qur-aankii buu fikiraya sawirkiisa eeg innahu fakara waqadar wuu fikirayo wuu qadaray wuu qorshaynaya wuxuu ka odhan lahaa qur-aanka faqutila kayfa qadara uma qutila kayfa qadara ilaahay baa nacdal ku tuuro wuxuu yihi qutilad waa la nacdalay siduu waa la nacdalay muxuu qorsheeyey xun qur-aanka ilaahay wuxuu ka sheegay xuma allah nacdale uma nadara arrinkuu dib u eegay bal waxaad shirka geynaysa ka fiirso uma cabasa wa basara cabasada waxa weeye qofka wejiga yara ururiya muujiya waxaan inaanu raalli ka ahayn cabasa watawalla saasaynu ugu tegi doonaa insha allah waa nabigoo nin hadal ku yidhi oo xoogaa wejiga yara ururiyey laakiin kani kii maaha waxa la socda waa basara cabuuskii wejiga u ururiyey markii hore maxaynu idhaahnaa dee wejigiibuu kabta ka dhigay kabtuu ka dhigay wejigii maxaan hebel la hadlaa wejigiisiibaa kab noqde macnaha aad ila kabi way foolxun tahay wejigiisiibaa aad u foolxumaadoo gaadhay heelaan la eegiba karayninba hadaad arkaysa saas wey sawirkiisu markaasaa dabeetana uma adbara wastakbarana waxay bilaabaysaa adbara wuu ismarooriyey nebiga kuma soo jeedsanin ilaahayna kuma soo jeedsina ismaroorin buu bilaabay iyo kibir iyo aftaag فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر قوانك وقع والسحر ضدك وكصابرت وهذا البني آدم وصل قيمة انت سقوانك سنة صادتك كلها وفود عربتك كيما يسي يكوى عمره إيمانا يكوى حسك يسا كلها قال كسوق القرآن كاغا إنه أمانه دين تاغا إنه أمانه دعوة هذا إنه أمانه خير الله إنه كاش يجها سوق ترتم بهذا كتيرتاني يكسوق جينية وينك بابيه فأسليه سقر ونارها إلهي متكمل الله وتلقى نوعا وما أدراك ما سقر يدريك إيه أدراك قرآن جوابته له بحيه يدريك السلام بحيه محاكو قيسي لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 فكوات المانية لا تبقي ولا تذر لا تبقي اللحم ولا تذر العظم شركة مرة بيس اللفتنا دارا حاسوها رأيدي لا تبقي حيا ولا تذر ميتا لا تبقي حيا مد نول نفتا كدين ما يسوي كقاري ولا تذر ميت
mid dhintayna jinaasadiisa u dayn maysa ilaa qolfihiisay roogi ilaa qolfoofkay roogi nooca way taasay ku maraysa lawaxatu lilbashar jirka bani aadamkay sidaa u muudsanaysa sida birlabta ayuu jirku ka hor cararaya markay ku soo jeesto waxa ilaahay bashar u diyaariyay 19 malag baa dul taaganoo ilaahay uu garanayo awoodda ay leeyihiin 19 malag baa la sheegay markaas dabeetana maxay ka sheegeen alla wuxuu wama jacalna ma yeelin asxaaban naar illa malaa'ika qolada naarta dul taagan malaa'ik baan ka dhigay wama jacalna iddatuhum tiradoodana kama naan dhigin illa fitnatan wax dadka lagu sii imtixaanayaanu ka dhigin lilladina kafaru kuwi gaalada ay fitnowt liyastayqina siya u yaqiinsadaan baa loo sheegay alladina utul kitaab kuwa kitaabka la siiyay yaqiin bay kororsan wayazdada alladina aamanu dadka muuminiintina waxay kororsan doonaan iimaanan bay kororsan walaa yartaaba ma shakiyaya alladina utul kitaaba wal mu'minuun kuwa kitaabka la siiyay muuminiintu ilaahay qaybku sheegay kama shakiyaya waliyaqula siya u yiraahdaan alladina kuwa fi qulubihim marad qalbigooda cudurku uu jiifo iyo iimaan la'aan iyo wal kaafiruuna kuwa gaaladiiba waxay oran doonaan maada araada allah ilaahay muxuu uga dhigay bihada kan midalan tusaale muxuu ilaahay intan dawriyo 10 kan malag 19 kan malag muxuu tusaalaha ugu soo qaatay 19 bani aadam wax kaga filan ilaahay wuxuu kadalika sida kuwa loo lumiyay yudillu allah ilaahay wuxuu luminayaa man yashaa cidu doono wayahdi man yashaa cidu doonana wuu hanuuninaya wama ya'lamu junud rabbi ilaahaga culaalkiisa ma oga إلا هو يسقون بعلكي سيقان ودو لي وما هي النار تاسما ينقنين إلا ذكرى للبشر بني آدم كوعد يواني أط ذاتك قلوب تدوحا نقول شيء يسيه وحقوقاتها كلا ككالي والقمر بان كدار تيبو لها الأود إلها إيغا تايحان كدار والليل هذين كيبان كدار إذ أدبر مركو سيتشي تسلو والصبح واغا أيان كدار تي إذا أثر مركو سوق قدوته أو صوب دامه intaasaan ku dhaartay innaha taa la idin sheegay la ihdal kubar balaayooyinka waaweyn wey naartaas nadiiran digniin bay u tahay lil bashari aadanaha kii digniin qaadanaya liman cid bay digniin u tahay shaa doono minkum idinka idinka mid an yataqaddama inuu horu maro aw yataakhara ama dib maro kii dib u socdiyo kii hore u socdo mid walba waxaan ugu talagalay digniin u noqoto ilaahay mid aan faacdiyo mid aan anficinba markii 19 malag la sheegay ayaa la bilaabay istihzaa iyo jees dad baa la naaraya farabadan 19 malagna naarta noocan bay dul taagan qolaba wax tiri mid baa wuxuu yiri 19 ka laba una iga filaada 17 ay igu daaya inta garabka midig baan ku dhufanaya intaana garabka bidix baan ku dhufanaya intaana horaan u jiray intaana dib qolana reefas baan ku qaadaya buu qolana hora ayaan u jeeraya waa istihzaak macna waa jees 19 ka malag 19 boqolaad un baynu ku hagaajin beelan malagiiba 100 nin un baynu malagiiba ku hagaajin dadka ummadda kale dee horayba ka gali doonaan jannadooda ama naarba daacid iyo la naarayaaba 19 kaas un bay hawada u diri 19 kiiba sheekadi ka dhanaa ilaahay shaqaalihiisa iyo naarihiisaba 19 kanay ku kooban yihiin bay shaqaalaha naartuba salaaniyadiisa intu halkaas dabeetana halkaas mashruuc laga dhigtay meesha warka laga bilaabay ee dicaayada laga bilaabay ee jeeska laga bilaabay ka waxay inaanta la yiraahdaa waxay leedahay xishood daro ilaahay wixii uu sheegay subxaanahu wa ta'ala runimadiisa ma eegayaan malaa'iktu noocay tahay ma yaqaanaan naartu noocay tahay ma yaqaanaan caalamkan ma ka bedelan yahay ma yaqaanaan waxa sida agtooda ma yaalaan waka ilaahayna halka marka wuxuu tilmaamay wixii ka soo baxay sheegida la sheegay malaa'ikta wama ja'alna asxaaban naar illa malaa'ik baan ka dhigay khalqi kale kama dhigin kuwaas ayaa ilaahay ugu talagala ku haboon wama ja'alna iddatuhum illa fitna iyo balaayo ayay ku noqotay tiradooda gaalnimay sii kororsadeen sida qofka muuminkii waxiga iimaan uga korsado gaalkuna kufri buu uga korsadaa ila kana aqbal buu korsanaya iimaan kana dafiraad iyo diid buu korsanaya lilladina kafaru bay ayay u tahay fitno waa kuwa ku sii gaalooday gaalnimo kala ka korsaday dadku waa laba qaybood taabicood iyo dareenkoodu noocan u kala yahay
marka waxyiga iyo la sheego quraanka iyo diinta iyo wacdiga iyo arrimaha maqan iyo aakhira marka laga waramo dadku labadan bay kala leeyihiin qolo yaqiin bay kororsanaysaa qolana iimaan qolana kufri bay kororsanaysaa iyo canaad liyastayqina alladina uutul kitaab kuwa kitaabka la siiyay yaqiin bay helayaan yahuudi iyo nasaara kuwooda miyirka qabee kelmad cadaalada ku dhawaaqaya waxay leeyihiin ha kitaabka iyagaa sheegay malaa'igta wax jira weeye quraankuna waa markhaati fura ويزداد الذين آمنوا إيمانا مؤمنينتنا أما أهل الكتاب كهذا أما مؤمنين النبي محمد رعضي لها هذا عدي مؤمنين هنا إيمان بكرسان إيمان بكرسان وحكستو إلى هاي الشيء وأخبروا إيمان بكر ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون عد كتاب لسيو كتاب يسكرون شيء يسيو مؤمن مشكيو وح إلى هاي لك مشكيو wax ilaahay yiri ilaa cid aad hadalkeeda qaadataa waa cid aad marka hore baa rumaysantay hadana ilaahay rumaysan hadalkiisana way rumaysan وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون كوا قلبigooda cudurku jiifay gaaladuna waxay oranayaan inta ilaahay ka hor yimaadaan maada arada Allah bihada mesela wuxuu kan ilaahay tusaale uga dhigay mu wax kala sheego muxuu 19 ka sheegay taas ilaahay kuwa daayiri qaarkood quraanka ilaahay tuu quraan muxuu tuqsiga iyo kaneecada iyo caarada iyo waxa ankabuut iyo dubaab iyo bacuuda haasu sheega quraanka dhexdiisa waa kalaam rabbi yahay yar yarka iyo xasharaadka maxaa laga sheegay xayawaanada waaweyn iyo kuwa haybada iyo kuwa layaab kale maxaa lagu sheegay inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ilaahayna wuxuu ka xishoon maayo كناعية وحي كيرية وحي كوين بين التصالة والسوقات كما حشونا أحياء يليق بجراني سيدوغ حشولا سيرتا كترتا مروديغا ومبا كترتا كناعة يعني هاي روح دا كترتا مروديغا دقاتين ايس أيوم با كترتا طيرنا مديبا مدكو كيري وكسي عشاي بدين مديبا مدكو كيريها أيو كسي بدين قولك علم دا ساينس كدراسات لغصنا اي حيوانا دا قوة اغير يرد ayaa habka ay u shaqeeyaan iyo habka ay isu difaacaan iyo habka ay u nool yihiin iyo habka ay isu dhalaan kuwaas loo daayay cajaayibka waa dhab ilaahay kama xishoonay subhana marka ilaahay adoon iimaan leh kama hor yimaado ma bushiyo uu rumaysaawun ماذا أراد الله بهذا مثلا بينه إلهينا وحده كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ساسو قالوا لهم يقولون وهنوني وما يعلم جنود ربك إلا هو إلهي علكي سيسكم بايقا ملائكة سوى علكيس نارها سوى علكيس مؤمنين سوى علكيس حيوانات سوى علكيس الدنيا آخرة علكيس إلهي سقع يقع مركا علكيس عيري ميساني كرت قالوا ما ميساني كرا عقلية وكم ميسان ما لحظة إلهي كون ميسان كودا يساقون بايقان ما قرنا يانا مرة ما يسنيه مركا يسوى جهان ضال أرك وما هي إلا ذكرى للبشر بني آدم كي وانوت قفك مؤمن كي نارت wuxuu rumaysan si waxa uu arkayo rumaysan waxa cibaadada ku kalifaya waa cabsideeda waxa xaraanta uga baydhaya waa cabsideeda waxa uu aakhiro xusuusan waa cabsideeda wama hiya illa dhikra lil bashar bani aadamka muuminka qalbigiisu fiican yahay naartaas qalbigiisa dabcisa sheegida ilaahay quraanka naaraha ku sheegay waa in qalbigeena wax ka bedesho ninka wala lama ladawi ninka taasi sugaysa inuu ladaba ma ladayo taasa qofka muuminka qalbigiisa ku weyn ragna ku jeesjeesay marka ilaaha malaa'iktan idin ka waramay waa ilaaha awoodan leh wuxuu ku dhaartay ilaahay dayax wuxuu ku dhaartay habeenka wuxuu ku dhaartay subax isbedeladooda waa isbedel la yaab leh isbedel la yaab la weeyo waynu la qabsanayno caadi bay noo noqdeen maanta haduu dayaxu cusboonaan laha qorraxdu cusboonaan lahay habeenku cusboonaan laha oo waagu cusboonaan laha adduunyada wax kale laga sheekeeyeenba إعلامك وح كلام ما قرينا طيح بقى صباح قرح بقى من هذين الليلة من مال الليلة كون كيو يسبدل الله جاك ولا رجمنا عزل ورنا لكن وينو لقب سمي كنا وينو يجينا ويستعاري بين لنا مركا أوفير سو يسبدل لنا أدعية دينا أخ أنت صبر تقرح دي واجية مركا يصير عيسنا بالله لا يسكب بس النقوم هذا لو كلا عروبة إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر إنها لإحدى الكبر هذه بلايون وينت بلايون كواوين بين أرتاس كتر تابع إلى هؤلاء نعناك استقال كلهر يماد
balaayada weyne laga subxaanalaysanaya waa naar nabi maxamed ducadiisu wuxuuna u badnay ilaahay uu naar ka magan galo ducadiisu waxay u badnayd ilaahay uu janno weydiisto adduunyada ilaahay ma weydiisanayn ubadna ma weydiisanayn wax kalena ma weydiisanayn waana looba sheego waxa la yidhi waa sanad galaysa haddana wataa ducadiisa liman shaa minkum an yataqadama aw yataakhara waxay sheegaysaa qofkii horu maraya kadib maraya liman nadiiran bay naartu u tahay digniin basharka ama anta nadiiran macnaa nadiiran baad u tahay nebi maxamedow lilbashar meel laga xaaleeyaba marar badan baa nabiga lasoo sheegay naartaa nadiira adiguna nadiir baad bani aadamkaa loo digaya digniinta muslimka iyo mu'minuun looguma talagelin ilaahay wuxuu ugu talagalay liman shaaa minkum an yataqadama aw yata'akhar cid baa loogu talagalay doonaysa inay ama horu marto ama hadho dadku waa labadan ifka waxa ku noole waa mid horu maray iyo mid hadhay horu socod iyo dabi socod loo isticmaalayo si sharciya oo loo isticmaalaynin sidii liidatay dee adduunya iyo qaxwaheedoo la yaro helo iyo daara iyo laydh la samaystaana waa horumar iyada oo diin la helaana waa dibdhac tii nooca ahayd maaha tani laakiin waa tii ilaahay uu noo sheegay subxaana wa tacaala iyadoo diin la yeesho iyo dadnimo wanaagsana waa liman shaaa minkum an yataqadam iyadoo la waayaana waa aw yataakhar mid walba waan ugu talagalay ilahay uu inuu wacdigaa qaato kullu nafsin naf waliba buu lahay bimaa kasabat wixii ay shaqaysay rahiinatun waa loo haystaa ilaa asxaab alyamiin qoladii kitaabkooda midigta laga siiyey looma hayste waa laga dhaafay fii jannaatin yatasaa'aluun jannooyin bay ku sugan yihiinoo waxay iska waraysanayaan cani lmujrimiina dembiilayaashii iska waraysanayaan maa salakakum fii saqar iyagii baabay waraysteenoo waxay ku yidhaahdeen kuwii naarta ku jire weydiiyeen maa salakakum fii saqar naartan saqaro la idhaahdo maxaa idin geliyey idinku sababa arkaynaa inay eedharaysaan halaagsanteen qaaluu waxay idhahdeen lam nakun min almusalliin maanaan ahayn kuwa tukada ma tukadayaal baanu ahay walam nakun nudcimu lmiskiin masaakiintana waxba maanaan siin jirinoo gacantood goday baanu ahay wa kunnaa nakhuudu waxaanu dhex tiimban jirnay xumaanta maca alkhaa'idiina kuwa xumaanta dhex galun baanu raacin jirnay nacamlayaasha sharkaanu ahayn weeye wa kunnaa waxaanu ahay nukadibu biyowmi ddiin maalinta qiyaamahana maanaan rumaysnaynoo aakhira diid baanu ahay xataa ataana alyaqiin ilaa yaqiintiiyo geeridii sidaa noogu timi fama tanfacuhum buu ilahay yidhi waxba umay tarin shafaacatu shaaficiin kuwii ergeynayay ergadoodii may anficin ergadoodii kuwaa may anficin saas wey waa waxyigu waxa uu inoo sheegayo waa wax lagu cibro qaato cidda waxyi weydaybaana wacdi weyday naf wacdi weydayna iyadoo nool bay geeriyootay min nicam illaah qur-aanka kariimka ah qofku ma ka maarmi karo habeenkii iyo maalintii marnaba ama tafsiirkiisa dhagayso ama waa inaad isaga akhridaa waa qur-aan qalbi aan qur-aan lahaynin wuu qolfoof buu noqdaa qolfoof mar walba waa inaad weeshato waa kama dhergaan dadka culimada ah ee alifee wax ka qora ayaan ka dhergaynin qof caamaana hadalkiisa la daa laa tashbacu minhu lculamaa culimadu kama dheragto jinku markii ay maqleen waa kii qulubtooda qaatee soo jiitay qur-aanka kariimka ah walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir naf walba waxa loo haystaa way u rahman tahay wixii ay shaqaysay taa hadday dadku qaadan lahaayeen baddaad aragtayba may galeenba haddaad ogaan lahayd hadalkaad tidhaahdo iyo ficilkaad samayso iyo fikirkaad samayso iyo taageeradaad samayso inaad u qoolantahay haddaad halkaa hortaada ku qori lahayd waad gaabsan lahayd dhan walba umaad rideene waad cagadhigan lahayd kullu nafsin bimaa kasabad rahiina tolka iyo dowladda iyo xisbiga iyo shuraakada waxaasoo dhan nin walba kiisaa loo haystaa kullu nafsin bimaa kasabad rahiina waad u rahmanta waxaad samaysun baad u rahmanta iska fiiri wax cid kale laguma haysto qolada midigta ilaahay iyaga wuu ka saamaxayo intuu qofkii la faqa ilaahay u leey kaama samaysay xataa idaa ra'aa annahu halak markuu is idhaahdo wallaahi waa tan lasoo wada qufay wax alla wixii dembi aad samayso waa la haystayaashaad ku jirtaa ayuu ilaahay leeyahay adduunyadiina waan kugu asturay iminkana waan ku asturo waxaasoo dada midna u sheegi maaye
وان كعفية كتاب هذه واقع اللهم اجعلنا من هؤلاء إلهي قوة هينغا يالو داع العويس كبدا يقفك إلهي ودافون بعد دقاقية كي كلنا واتاقين إلا أصحاب اليمين جنوين بي كتيرا يتساءلون عن المجرمين مركز جنودي سكوب صدام بين لي والبرتا كورمه بالمحسنين يا وريسنا بوا كالكن كقيله او وكالكن كجيره ان وريسنا اصحاب الاعراف اصحاب الجنه واصحاب النار واصحاب الاعراف سوره الاعراف تاخر انتم بو يسرقيا midna xagga sare jirtaa midna xagga hoose jirtaa jannaduna xagga sare naartuna xagga hoose hadana waa la isarkaya wala wada hadlaya maxaad ugu diidaysaa soo adigan TV-ga telefoonka aad masaraato adigoo bariyadan oo itaalkaagu yar yahay idan way waraysteen mujrimiintii waxaan ay halkay ku halaagsameen bay mujrimiintii hoosta ka calaamadiyeen hadaba waa ma iyadoo la tagay oo laga shubay oo la abaal mariyay oo la kala tagay baa Ilaahay soo gudbiyay wixii jiray marka waxa weeyaan waxa meesha ka dhacay maanta fursad haysta ka faa'iideyso ما سلككم في سقر ورماشنا كهيس كقيل إنسان حيد قليه بل أنت تريانه لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين أفرتار رمود ويالو عبادة الآن يا عقيدة الآن يا عطية الآن يا أخلاق الآوي عبادة الآن وين هيست هيه لم نكن من المصلين عقيدة الآن وين هيست يو وكنا نكذب بيوم الدين آخر دين بانو هاي عطية لآننا وأن هيستو حمانا بحين شرينو ولم نكن ندعب المسكين أخلاق لآننا وإن هيستو وكنا نخوض مع الخائطين متكستو يرى حمانكو يرى ووشيرين جرين تربانك يسعبكم ما نقرأت نخوض مع الخائطين حمان تكوى ساو دحك لي إن مريا ميا وضاني بن لوض ميا هاي كلان نقرني حاسوي عربات شوك تبع عمل كيلا يا رب سكيل على كلمة أسوا خطأ دي قال نقوي دي العطاء عطاء هدي لا إسقاوي عمل كذا هيالانينه أخلاق دي لها هيالا ونحسن وعرض جوكتبين العمل كذا يا شباب حيكا ترسميسا وكنا نخوض مع الخائضين كيف ما أنت دحك لبوان ولا قليتهم صلاة الله أنت وطاعته المجتمعين الريركين صاحبنا الكوة كلا شراكنا الكوة الحكومتين ماملك كلا الكوة كو شقايا لم نكن من المصلين انت هل كاردتك قارين هلالات ليها لو برمدو adduun ku bixiyo aqoon ku bixiyo awood ku bixi sida Ilaahay dadka ugu soo jeedin lahayd halkaas la u gaaraa salaad laanta idcaamul miskiina dawa faral waxa xumaanta aan la iska ilaaliyo aakhirana qalbigeena ku weyn wa kunna nakhudu ma'a al-khaa'idiin wa kunna nukadhibu bi yawm ad-din hatta atana al-yaqin yaqintu wa gaarida wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin yaqin ila yaqintu imanaysa abal marintoodi waxay noqotay fama tanfa'u shafa'atu shafi'in ملك با شفاعة قاضي ما ينفعين نبي با شفاعة قاضي ما ينفعين المهاجي با شفاعة قاضي ما ينفعين أولياء با شفاعة قاضي ما ينفعين يجينا مركز كعما كرو تاجنا وحيلين مركز يابين يا وحيلين وما لنا من فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم قل درب يضع شافعين ملهن عدنا إرقيس صاحب نقوم رطورنا مليه وحاصل لهم بأرجيل لكن وحبا كما هينا بإليه فما لهم إلهي وحويل فما لهم محاوص قنادا عن التذكرة واندا قرآن كمعرضين أيوسي جيلان وعنان سوكون واندي قرآن كسي جيلسدي كأنهم وحلموا ذا إيمان لا وياش حمر ضميره مستنفرة كعررتي مستنفرة ضطيده فرت كعررتي من قصورة اللباح أما من قصورة شيشيها يدد كي توغني dalka kaalayo yuriidu waxa uu sugayaaba kullu mri'in minhu mid kasto gaalada kamid ay yuta in la siiyo suxufan xaashiyo munasharatan la kala bixiyay oo la yiraahdo kitaabkan adigu akhri ilaahay baa ku soo diray kalla taasi ma jirta bulay dalka kaalayo la yaqaafuna al-aakhirah aakhiraanay ka cabsanayninoo aakhiradiidnimada xumaanta ugu wacan kalla ka kaalay gaaladu waxa ay yiraahdeen ha u joojinine innahu tadhkira quraanku waa waana iyo wacdi فمن شاء ذكره قفك دون يدها كوان توبة قلبه سهعلا وما يذكرون موان توبة يعني إلا أن يشاء الله إلهي نضانوا قلبه وضط توفيق ليه هداية السيام ويانا هو إلهي أهل التقوى لقى عبصره يعبسي إساق أهلها وأهل المغفرة عدن بدافتنا إساق أيها غمضان وأهلها بدافتنا إساق أهلها عبسنا إساق أهلها واسداس ويو إلهي وحاو تلمامي وحا سو وعدي ومعرضين فما لهم عن التذكرة المعرضين وانية وعد ما انفعينا الله
diintana wuxuu uga didaa dameer dibadeedku siduu libaaxa uga cararo libaax qowdhamay maar libaaxu markuu yidhaahdo soo taaho iska daa ugaadhee insaanka fulayga ah ayaa aqalkiisa ka carara marka libaax soo qowdhamay sida uu had iyo jeer dameer dibadeedku uga cararo si ka badan bay xaqa uga cararaan halkaa wacdi iyo diin iyo wanaag si la sheego dhaguhu furaysanaya meesha uu ka guuraya adaankana iga naaqusa way quraankana iga naaqusa waa bedelanaya xaafada uu ka guuraya xumrul mustanfira qaswaradu libaaxana waa lagu tilmaamay nimanka rumaadana waa lagu tilmaamay mid waliba wuxuu doonayaa suxufin la siiyo wuxuu leeyahay aniga ilaahay risaalad gaar ah iyo message ay soo diro hay yiraahdo maxamed run buu sheegayaa qoraalka qaado kaasaab ayaa marxaati ah mid waliba kaasu sugaya aakhirana rumaysnay quraankaana rumaysnay quraanka lagu waantooba ilaahay wama yadkuruna illa in sha Allah wa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah wasas suurada waxa lagu bilaabay weynida ilaahay qalbigeena inuu ilaahay ku weynaado inuu xusuusnaano taasana lagu soo gabagabeeyay bilowgii iyo dhamaadkii labadaba huwa ahlu taqwa wa ahlu maghfirah isaga cid laga cabsada isaga u ehelehay isagu ka cabso laba ula inaad cid kalena ka cabsato isagana ka cabsato iskali mayso labadaas way siidayaan cid haddaad saamaxaad iyo dambi dhaaf ka sugaysana isaga gacmaha hoosayso cid kalabaha ku cadhootee waxba ku yeeli mayso Allah subhanahu wa ta'ala